kulan aad u xiiso badan ayaa waxa uu garoonka Hargeysa Stadium ku dhex maray labada xul gobol ee Gabiley iyo Togdheer. Labadan gobol oo ku wada jiray Group D ayaa kulankoodu waxa uu ku bilaabmay xiise iyo xamaasad, waxaana bandhiga goolasha furtay xulka gobolka Gabiley iyadoo isla markaasi uu daqiiqadii 25aad u dhaliyay laacibkeeda Axmed Hindi kulankana ka dhigay Halyeber. qaybtii hore ciyaarta markii ay maraysay daqiiqadii 45aad ayaa xulka Gabiley haddana waxa uu helay goolkiisa labaad, waxaana goolkaasi u saxeexay laacibka khadka weerarka ah ee Mukhtaar Misi kulankana ka dhigay Halyeber. qaybtii hore ciyaarta waxaa lagu kala nastay Halyeber oo xulka gobolka Gabiley ku hogaaminayo. qaybtii labaad markii la isku soo laabtay koox walibana ay macalinkeeda la soo tashatay ayaa xulka gobolka Togdheer waxa uu la yimi goolkiisa koowaad iyadoo isla markaasi uu dhaliyay laacibkeeda Amiin daqiiqadii 7aad. sid mudan in kulankani uu ahaa kulankii ugu xiisaha badnaa ee Group D, waxaanu kulankaasi ilahaanba ku soo gabagaboobay dhex maray labada gobol ee Gabiley iyo Togdheer 2-1 uu xulka gobolka Gabiley ku guuleystay. dhinaca kale waxa maanta garoonka Hargeysa Stadium ka qabsoomay orodka 800 mitir. orodkan oo ahaa mid reebreeb ah ayaa waxa ka soo qayb galay 14 gobol ee Somaliland, waxaana faahfaahin nooga bixiyay xogeyaha xidhiidhka ciyaaraha fudud ee Maxamed Xasan Nageye. inta hadhayba marka orodkii ugu horeeyay ee 14 gal ku tartameen waxa uu ahaa 100 mitir buu ahaa. 100 mitir runtii waxa ku tartamay 14 gobolba waxa marka 100 mitir ku guuleystay kaalinta koobaad gobolka Hawd, kaalinta labaadna waxa ku guuleystay 100 mitir gobolka Daadmadheer, kaalinta saddexaadna waxa ku guuleystay gobolka Saraar. kaasi waxa uu ahaa 100 mitir. labada 100 mitirna waxa ku guuleystay kaalinta koobaad gobolka Hawd, gobolka labaad kaalinta labaadna waxa ku guuleystay gobolka Maroodijeex, kaalinta saddexaadna waxa galay gobolka Saraar. shalay waxaanu qabanay orodka 1400 oo isaguna isreebreeb ahaa. marka beritoolo ayuu dhacay finalkoodii 6 gobol baa iskugu soo baxay. waxaan halkan ka xaadirin doonaa 6dii gobol ee shalay soo baxay ee beritoolana insha Allah haddii Ilaahay gaarsiiyo finalka ma ku kala bixi doona. 6da gobol waxay kala yihiin gobolka Saaxil, gobolka Maroodijeex, gobolka Saraar, gobolka Togdheer, gobolka Hawd iyo gobolka Gabiley. waxaan hadda xaadirin doonaa 8dii boqol ee maanta oo iyaduna isreeb ahayd 6da gobol ee iskugu soo baxay oo finalka insha Allah iyaguna wada ordi doona. 6da gobol waxay kala yihiin gobolka Salal, gobolka Gabiley, gobolka Maroodijeex, gobolka Saraar, gobolka Badhan iyo gobolka Daadmadheer. sidaas ayuu markaa xogteenu inoogu dhantahay. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland, madaxdeeda, wasiirka iyo agaasimaha guud iyo dhammaan agaasimo waaxidada iyo shaqaalaha sida fiican u shaqeynaya dhammaan iyo dadweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ee gobolada kala taageersan ee runtii ciyaaruhu xiise geliyeen. aad iyo aad TV-ga qaranka 100% waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsantihiin hadaan nahay wasaaraddii sida wanaagsan aad ugu shaqeynaysaan qarankiina iyo dadkiinaba. ka hor intaanay ciyaartu bilaabmin waxaanu kulan la yeelanay tababarayaasha iyo mas'uuliyiinta ka soo qayb galay kulankaasi. telefishinka qaranka aad baan u salaamayaa. maanta waxa weeye maalinteedii labaad. waxaanu guul baan rajaynaynaa insha Allah. qoladaan la ciyaarnaa waa qolo adag, waa Gabiley, waxay leeyihiin hal bunto leeyihiin, annaguna ma leeyihiin waxba. marka maanta waxaan doonaynaa badis insha Allah guul inaanu ka gaadhno meesha. dareenkayguna aad buu kacsan yahay, taageerayaasheeduna meesha way soo buuxiyeen. insha Allah biidnillaahi kariim waxaan rajaynaynaa inaanu kala baxno halkaas 3 bunto aanu kala baxno halkaa insha Allah. dhammaan taageerayaasha gobolka Gabiley ee maanta halkan ku sugan oo u yimid ciyaarta gobolka ay ciyaari doonaan insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo. waxa aan maanta rajaynaynaa insha Allah guul baan rajaynaynaa maadaama ay ciyaar adag tahay oo ugu soo talagalay inaanu ciyaar adag ciyaarno. rajada aan horta tatanka ka leenahay hal bil baanu tababar ku soo jirnay. bishaasi tababarkaan soo qaadanay garoonkaanu ka muujinay ciyaarteedii hore wanaaggeega iyo quruxda ay lahayd. maanta laakiin waxaan doonaynaa in aanu guuleysano insha Allah haddii Ilaahay. rajadeeduna waxa weeyaan koobka in insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo inaanu soo qaadno gobolka geeyna sanadka haddii Ilaahay yiraahdo. waa wanaagsan yahay, meel wanaagsan bay noo maraysaa insha Allah. waxaanu fili doonaa inay inoogu dhammaato. kulaylkan iyo qaylada arkaysa waxa weeyaan saacaddii isreebreebka la soo gaadhay. qolo walba inay baxduunba ka yara baqaysaa, laakiin ciyaarta hadda iskale hadduu baxaan iyo haddii kaleba waxaanu leenahay si degan oo akhlaaq leh loo ciyaaro. sidaa ay noogu bilaabantayna ay noogu dhammaato. aad baan ugu rajaynayaa wanaagga.
waxaanu ku sugannahay garoonkii weynaa ee Hargeysa Stadium maanta waxaa wada ciyaaraya ciyaartan labaad gobolka Gabiley iyo gobolka Togdheer ciyaartu iminkay bilow waxoogaa bay socotaa runtii si fiican ay ciyaartoygu oo akhlaaq ka muuqato iyo ciyaar wanaag bay labada kooxood oo ciyaarayaan insha Allah waxaan rajaynaynaa in ciyaartu si wanaagsan oo anshax leh ku dhamaato dhammaan shacbiga Soomaaliland iyo daawadayaasha taageerayaasha labada qolo ee labada kooxoodba waxaan leeyahay insha Allah guur bay nagu dhamaanaysaa waana hambalyeynaya wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo runtii arrinkan uu yahay ama ujeedada xukuumaddu ka leedahay ay tahay isdhexgal la doonayo inay bulshadu isku dhex gasho dhalinyarta Soomaaliland ee ka imanaysa baran ilaa iyo Selel inay dhammaantood saaxiibtinimo iyo isbarasho iyo ay noqdaan safiiro maanta ciyaar aad iyo aad runtii u xiiso iyo xamaasad leh oo dhex maraysa labada gobol ee Togdheer iyo Gabiley ayaan ku daawanaynaa garoonka Hargeysa Stadium waxaan isleeyahay waa ciyaartii ugu xamaasadda badnayd intii ciyaaruhu socdeen ee halkan aan ka daawano labada gobol aad iyo aad runtii u soo diyaar garoobeen ciyaartuna si wanaagsan bay u socotaa sida ilaa maanta ciyaaruhu inoogu socdaan ee nabadda ah ee isdhexgalka bulshada oo Ilaahay loogu mahadnaqo waxaan rajaynayaa insha Allah inay sidaa inoogu dhamaato xukuumadda oo ugu horeysa wasaaradda ciyaaruhuna waan uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ay u soo abaabuleen ciyaaraha waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala inaan guul iyo horumar ka gaarno intii ciyaaruhu socdeenna dadku waxaad moodaaba inay wixii kale ka jeesteen oo ay ciyaaraha ku mashquulsan yihiin aad iyo aad ba TV-ga qarankana ugu mahadcelinayaa caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ahna caasimadda Maroodi Sheekh waxaan filayaa waxa ummadda reer Soomaaliland gudaha iyo dibadba ay filayaan inay tahay ciyaartii ugu adkayd ugu quruxda badnayd ugu jamaahiirka badnayd taasoo ah Gabiley iyo Togdheer waxaan marka hore u dirayaa shacbiga reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan inay shacabkooda iyo dadkooda ciyaartooyga waliba khaasatan taageeraan inay si wanaagsan inta ciyaaruhu socdaan ay u taageeraan xamaasadana gobollada oo ay ilaaliyaan anigu waxaan filayaa maanta waxay tahay farxad guula dhammaanna TV-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantood aad iyo aad baan u salaamayaa waa mahadsantihiin waxaan halkan maanta aad iyo aad ugu hambalyeynayaa labada kooxood ee gobolka Togdheer iyo gobolka Gabiley oo labaduba ay soo bandhigeen ciyaar aad iyo aad u hufan inkasta oo ay ciyaar wanaagga sii leeyihiin gobolka Togdheer waxaan leeyahay hadba kooxdii badisaa waa loo haniyeynayaa hase yeeshee waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay inay gobolka Togdheer badin doonto haddii laga badiyana waa ciyaartu waa barmadow iyo barcad waan loo haniyeynaynaa cid kasta oo badisana waan ku taageersannahay warsame cali xamse qurbaani cabdiqaadir kabadhe telefishanka qaranka Soomaaliland Hargeysa